sadaa hadda ka horna uu ka mid ahaan jiray al-shabaab hase yeeshee haatan uusan ka mid ahayn ururkaasi. aniga oo ah Axmed Cali Gees jooga dowlad goboleedka Galmudug Cadaado jooga maanta oo taariikhdu tahay February 21 ayaan waxaan rabaa inaan ummadda u cadeeyo oon u sheego ummadda Soomaaliyeed inta ay maqlayso iyo inta maaragtay ila joogtaba inaan ururka shabaab la yiraahdo inaan ka baxay 2012 inaan ka baxay oo sidaas awgeed ilaa waqtigaas ilaa haddana aanan ka mid ahayn marka intaas ayaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ogeysiyo u sheego. dhinaca kale Axmed Cali Gees oo loo xiray tuhun ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa sheegay in xilli aan fogeyn dhaqdhaqaaqaasi ay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ku xireen iyagoo ka xun ka bixitaankooda sida uu sheegay. waa cadaadis badan aan kala kulmay ayagoo ka xun ka soo tigidaan marka hore ka soo tagayay ayaa kala kulmay oo mar waxa kamid ah telefoonada la iga qaaday ayaa kamid ahayd marka cadaadis badan ayaan kala kulmay marka sidaas waa marka haatan waxa joogtaa Cadaado ma waxa leedahay al-shabaab rasmi ahaan iyo si dadban midna uga mid yahay si dadban iyo si toosan midna uga mid yahay sidaas ayaan ummadda u cadeynayaa ummadda ay dhageysanaysa taas ayaan u cadeynayaa waa anigu horta waxaan ahaa nin macduur oo fadhi meel fadhiya aan u badnaa afka ayaan ka taageeri jiray markii afka aan ka taageeri jiray anigu waxaan u taageerayay dad diinta u shaqeynaya oo gaalada la jihaadaya ayaan maaragtay u arkayay kadibna waxaan arkay inay qaladaad badan uu ka jiro oo gaaladii dagaalkeedii iyo dadkii muslimkii la isku daray oo aan waxba la kala soocaynin oo akhdaa badan ay jirto akhdaadaas markaan arkaan